بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها خيارتي أصحابتان جعلهاي جنال كيغان واني وعي قلن كحيران ولا ليال سو دواد إن شاء الرحمن لما ولا لها يقصو بيرين وحان ليها سو دوادا ما نوال بولا العصوان نقصو بيرو وانسو دوينينا ولا لها الناس وحان لينا هاي قعم فرون كسو دوادا adiga haddana daawanayn haddii ay ku taa walaal markii ugu horeysay oo aad channelkan daawatid haddii aad ku qanacday waxyaabaha aan channelka soo gelin waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo dhahdid gambaleelkana aad furitid si mar walba wax cusub aan soo dhigno ay ku soo gaaraan dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin maanta khiyaare waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo ama waxaan rabaa inaan xeer isku baraarujin nafteedii tiinabo dardaaran cajiib ah dardaarankaas oo maaragtay ay nooga yimid dad bakay ugu qiimo badnaa danaheena iyo maaragta maslaxadeena adduunyo aakhirana ugu ogaal badnaa dardaarankaasi wuxuu horta ugu horeen nooga yimid Nabiga Maxamed sallallahu alayhi wasallam dardaarankaasna waxa uu ku wajahan yahay ummadda Nabiyullaahi Maxamed ummadda Nabiyullaahi Maxamed waxaa loo qaybiyaa laba qaybood gabi ahaan ummadda adduunyada ku nool hadeer laga soo bilaabo markii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam la soo diray ilaa qiyaamu saaca ummadaha imaan doono dhammaantood ay waxay doonaan diimaha doonaan bahar rumeysnaadaan waa ummadda Nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markaas ayaa ummadda waxa loo kala saaraa laba nooc ummatu dacwa iyo ummatul ijaaba ummatul ijaabane waa ummadda ma aragtaa islaamka ah oo anaga aan ka mid nahay insha Allah rajeynayo ummatu dacwana waxa weeyaan waa dhammaan inta ka soo hartay ummadda islaamka ahna waxaa la dhahaa ummatu dacwa waxa ku wajahan dacwadii laakiin maysan ajiibin marka dardaarankan waxa uu si qaas ah Nabiga Maxamed sallallahu alayhi wasallam kula dardaarmay waa ummatul ijaaba insha Allah iyo ummadda islaamka ah dardaarankaasiti waxa uu waliba Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam dardaarmay markii uu ma aragtaa sii dhimanayay naftu ka sii baxaysay wuxuu ahaa hadalkiisii ugu dambeeyay ee la wariyay inuu ahaa Nabi sallallahu alayhi wasallam dardaarankaas hadaba insha Allah waa idin la wadaagi doonaa laakiin bal adigu naftaada inta miisaan saartid fiiri waxaad ka mid tahay dardaarankaas dadka dayacay mise waxaad ka mid tahay dadka daryeelay ee dardaarankaas insha Allah sida loogu talagalay u fuliyay mid waa ognaa horta markii lagu dhaho dardaaran inta badan dardaaranka waxaa dardaarmo waalidiinta iyo dadka ehelka iyo qaraabada iyo dadka wax isku ah oo ma aragtaa la xajecla isku haysa isku dardaarmo somahan marka sida daraadeed dardaaranada ma aragtaa dadkeena markay dhimanayaan ay noo jeediyaan ama ma aragtaa ay nagula dardaarmaan waan oofinaa oo waxa waay qofka marka uu xayiga yahay waxyaabaha uma aragtaa nafaro ama waxyaabaha uu nadho sameeyo inta badan waxaa dhici karta in laga agajiido xataa haduu waalidka yahay laakiin markuu qofka maxay tole sii dhimanayo naftu ka sii baxayso waxa uu ma aragtaa kugula dardaarmo uu ku jeediyo inta badan waxa dhacday in ma aragtaa la fuliyo waana sida ma aragtaa wanaagsan oo hadda deento kalentood ama qofka ma aragtaa markuu sii dhimanayo kalentood waxyaabaha laga la tahay in ma aragtaa la fuliyo waxa waaye waxa kamid oo lagu daraa marka laga soo tago deenta in laga bixiyo waxa waaye wasiyada ama dardaaranka uu qofkaas jeediyay oo waan ognahay oo ma aragtaa aayad dhanbaaba ka hadashay in qofka dardaaranadiisa la fuliyo wixii ma aragtaa sharciga ka waafaqsan marka sida daraadeed waan ku dheeraada hordhacayga raali ahaada waxaan rabaa in insha Allah dardaarankii idin la wadaago marka dardaarankan horta wax kale ma ahan waxaan rajeynayaa dad badan inay maqleen oo wali marar badan maqleen laakiin waxaan hadda idin ma aragtaa idin ku soo qaadanaya waxay tahay waxaan jeclaystay inaan idin xasuusiyo maxaa yeelay dad badan ayaa qaflad kaga sugan ama iska ilaaway sida daraadeed waxaan jeclaystay waxa waaye inay ma aragtaa xasuusin inoo noqoto maahan waxaan maanta ma aragtaa idin ku cusub ama maahan inaan wax cusub idin sheegay insha Allah dardaaranka waxa uu ku saabsan waxay tahay salaada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam laba shay uu ka dardaarmay markay naftu ka sii bixaysay wuxuu Nabi sallallahu alayhi wasallam as-salaatu ma malakat aymanukum marka ani hadda waxaan rabaa inaan soo qaato oo ka hadlo waxa waaye salaada waxa laga yaabaa dad badan inay ma aragtaa la yaabaan waana sida badan qofka hadii aad tahay qof ma aragtaa beed wanaagsan ka yimid ama tarbiyo wanaagsan la soo siiyay
waad qariibsanaysaa inaad ma aragtaa aragtid ama maxay toole aad maqashid qof weyn oo qaangaar oo ilaahay ma aragtaa salaad ku waajibiyay ayaa maxay toole salaad ka tagay laakiin marka adduunyada martid ama dad fara badan aad dhexgashid ama ma aragtaa aad ummado badan la kulantid oo muslimiin ah waxaad ogaanaysaa arinta aad ma aragtaa rumaysneed inay ma aragtaa cagsigeeda ku soo baxdo ama cagsigeeda adduunyada ka jirto marka sidaa daraadeed waxa aan rabaa inaan isku baraarujino waxa waaye dardaarankaas nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu dhimanayay naftu ka sii bixisay ayuu noo dardaarmay waxa uu noo dardaarmayna waxay tahay salaadaha shanta ah ee waajibkeenugu ah ee qof walba muslim ahna waajib ku ah ee qaangaar ah marka salaadihii ayaa waxaa marar badan dhacdo inay dadku ma aragtaa qaarna isagaba tagaan qaarna ma aragtaa ay si ma aragtaa ama si nooc kale oo aan ma aragtaa la ilaalinin ay u tukadaan ama maxay toole waqtiga ka dib dhigaan ama maxay toole si aan saxnaynba u tukadaan marka waxa la yaab qofka inuu ma aragtaa adduunyadiisa uu ka fakaro oo hadaad ganacsi yar furnaysid waxa dhacayso waxay tahay in ma aragtaa aad ama koorsooyin qaadatid ama maxay toole dad fara badan aad la tashatid oo kaaga khibrad badan waana wax yar oo ma aragtaa nacfi adduunyo ku raadinaysid laakiin wixii ugu weynaa oo maxay toole qiyaamaha ma aragtaa ayba tahay waxa ugu horeeyo laga xisaabinayn waxa dhacda inaynan ma aragtaa raadinin ama dabagelin waxa ay ku ansixayso iyo waxa ay ku burayso iyo ma aragtaa waxyaabaha salaadaas qoseeyo dad badan haddii ay tukadaan xataa ma raadiyaan waana jirtaa waxa dhici karta in ma aragtaa salaadaada meelo badan ay ka qaldantaado hadana shanta waqti tukado ad waa isla qumantahay laakiin waxa dhici karto ama laga yaabo inay kugu dhacdo sida ninkii uu ma aragtaa xadiiska lagu sheegay 60 sano tukanayay aan salaadiisa la aqbalin sababtuna wax kale ma ahayn waxa way salaadii ayaa sax u noqon weysay uu tukaday uu dadaalay laakiin meel uu ka qalloociyay ama ma aragtaa uu dhameystirin laakiin ugu asagu isma lahayn waxba ka qaldan dhibaatada waxay ka timid waxa way uusan dabagelin uusan raadinin uusan u dadaalin ugu dambeyntii walaalahayow salaada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu dhimanayay nafti ka sii bixisay aanu ugu dardaarmay marka waxa aan isku baraarujinayno waxay tahay inaan salaadeenaas ku dadaalno tukano ilaalino ilaahay wax kale noomu dirsan wax kale noomu abuurin kaliya wuxuu noo abuuray waxay tahay inaan caabudno cibaadadina ma aragtaa maalin walba wax kale noogama baahno waxa laga yaabaa inay qaarkeen ku qaadato 25 daqiiqo xataa haddii saacad kugu qaadato 5 salaadood oo ma aragtaa saacad ku wada tukatay ayagoo dhan markii loo qeybiyo saacadaasi inaysa ka badanin baa laga yaabaa waa kii dadaala kii kale intood waxa laga yaabaa 5 daqiiqo 4 daqiiqo inuu ku tukado marka intii yarteedo intaas haddana ma aragtaa aad ka tagtid soo halaagii hoog ma ahan soo ma aragtaa aakhiri adduunyo seegso ma ahan wallahi way tahay haddii aad ma aragtaa sida u fakartaan marka insha Allah ilaahay wax kale noomu dirsan intaas ayuu noo dirsaday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka naftu ka sii bixisay dardaarankaas ayuu noo jeediyay insha Allah waxaan rajeynaa waxay tahay fahanteen hada dardaaranka wuxuu yahay waxaan rajeynaa insha Allah intii ma aragtaa ilaalisay dardaarankaas ee meeshiisa dhigteen insha Allah idinkiis ilaahay ma aragtaa ha ka aqbalo intii dayacdeen ilaahay waxaan uga rajeynaynaa walaalaheena waxaan leenahay ilaahay ma aragtaa soo hanuuniyo ilaahayna ha u fududeeyo salaaduna waxa weeyaan sida ma aragtaa aayado far badan oo quraanka lagu sheegaybo salaadu waxa la dhahay ku sabar marka sheegan ku sabar hadii lagu dhahay waxa halkaas kaaga cad inuusan ahayn maxay tolo shay fudud waa lagu sabraa soo maahan marka waxa way dadaal iyo juhdi dheeraad ah ka rabtaa in aad dulqaadato sabar badan u muujisid ka rabtaa marka insha Allah ilaahay ha nagu duu annagana ma aragtaa ilaahay ha nagu sugo intii aan tukanaynin ilaahay ha soo hanuuniyo ilaahayna ha u fududeeyo insha Allah biidnillahi albaari qof walba aragtid ma aragtaa salaadu si ay ka tahayna insha Allah waxa way walaalka soo dhaweey waani wax u sheeg intii aad ma aragtaa baraarujin kartid baraaruji biidnillahi albaari sidoo kale intanada tukatani waxaan rajeynaa insha Allah inaan ma aragtaa salaadaheena sixi doono oo ma aragtaa waxyaabaha salaadaheena ka qaldan insha Allah aan ma aragtaa iska fiirin doono iska ogaan doono intii ma aragtaa salaadooda ay u saxan yihiin insha Allah ilaahay ma aragtaa abaal marinteeda iyo ajirkeeda kama habaabiyo inta kalena insha Allah waxaan rajeynaa inay dadaali doonaan waxaan rajeynaa markiina insha Allah fahanteen dardaarankaas waxa uu yahay biidnillahi albaari waxay iga ahayd ma aragtaa baraarujin iyo walaalaha ma aragtaa
hurdada ka kici oo maxay toole khayrka isku baraarujiyo isku kaalmaysta insha Allah waa rajeynaa in akhyaari asxaabi fiidiyoga wax ka fahanteen aad iyo aadna waxaad ugu mahadsantiin daawashada iyo sida quruxda badan mar walba ay la socotaan tan iyo intaan fiidiyoga waxay ku kulmeen waxaa idinkaga tagayaa waxay tahay salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh